haweeney jirta 7 sano ayaa waxay dhashay 8 caruura cajiib daawadayaal sad wada aragtaan ba caruurta ay dhashay waxay ka badan yihiin daada iyadu ay jirto bal sababta keentay iyo waxay uga badnaadeen aynu ka wada bogano haweeney daadeedu ay tahay 7 jir oo ku nool dalka Uganda ee bariga qaaradda Afrika ayaa waxay dhashay 8 caruura tiradaasi oo ka badan muddada sanadaha ay jirtay iyadoo hooyadaasi gashay buugga dhacdooyinka adduunka lagu ururiyo sida lagu baahiyay wargeyska Daily Mirror gabadhani oo magaceeda la yiraahdo Maryam isla markaasina degan tuulo u dhow caasimadda waddankaasi Uganda ee Kampala gabadhani oo magaceeda la yiraahdo Maryam isla markaasina degan tuulo u dhow caasimadda waddankaasi Uganda ee Kampala waxay ilmaheedii ugu dambeeyay dhashay bishii December sanadkii 2016 kaasi oo lagu qalay isla markaasina si caafimaad ah ku dhashay gabadhani oo 14 jeer umushay 6 jeer oo dhashay mataano laba ah iyo qaar kale oo afar iyo kuwa kale oo saddex waxaanay dhashay mataano aad u tiro badan iminka tirahan caruurteedu waxa weeye 8 wada kuwaasi oo 10 kamid ay yihiin hablo halka kuwa kalena ay yihiin wiilal caruurta ay gabadhani dhashay waxa ugu weyn 23 sano jir waxaanu ka ugu yarna dhashay sanadkii 2016 waxaanu haatan jira muddo 4 bilooda gabadhani ayaa waxay sheegtay inay guursatay iyadoo 12 jira sanadkii 1993 halka ninkeeda ay daadiisuna ahayd 40 jir taasi oo muujinaysa in si weyn uga weynaa anigu warba uma haynin guur inaan guursado maraan garanayn waxa uu guurku yahay maalmaha kamida dad badan ayaa noo yimi aabahay ayaa siiyay waa la raaciyay waxaan moodayay inaan tagayo gurigeedaday laakiinse waxaaba la ii gacan galiyay nin la igu yiri waa uu ku guursaday sidaasi waxaa tiri hooyadani dhashay 38 caruura waxaana sheegtay ilmaheedii ugu horeeyay ay dhashay sanadkii 1994 waqtigaasi ay ahayd 13 jir waxaana sanad kadib ay dhashay 2 caruura oo mataana sanad iyo 10 bilood kadibna waxay dhashay 4 caruura oo mataana sida lagu faafiyay saxaafadda waddankaasi Uganda hooyadani 7 jirka ah ee dhashay caruurta 8 qof waxa ay sheegtay inaanay la yaabin arintani maadaama aabaheed dhalay 45 caruura kuwaasi oo ahaa mataano qaar ay u dhasheen 4 qaar kale 2 kuwa kalena 3 waxaanay arintaasi muujinaysaa in gabadhani ay hidaraacday waalidkeed gaar ahaan aabaheed oo dhowr dumar ah guursaday oo u dhaleen mataano kala duwan sidoo kale arinta kale muujisada ah ayaa waxay tahay in gabadhani hooyadeedna ay dhashay 8 caruura haddaba dhakhtarka gabadhani ayaa waxa uu sheegay in arintani ay tahay mid ay ka hidaraacday waalidkeed loona baahan yahay in la farsameeyo waxaanu dhakhtarku sheegay in haddii gabadhu ay isku daydo inay iska joojiso mataanahan faraha badan ay dhalayso ay geli karto xaalad halis ah isla markaasina ay dhimasho horseedi karto